waxaad ka cabanaysaa xaaskaaga haa eegu yidhi aniga sida lii canaananay in sidaan u hooganaya eeg war gabdhaha waa inay sarreeyaan waa in hoosta laga eega yacni waa in yaa hadalka la rogina waa in maaragtay laga hogtaa haweenka eeg wuxuu leeyahay dharkay ii dhaqdaa wasaqdeeday dhaqdaa oo ilmahayga oo waxbay ii kanisaa oo maaragtay way ii gogashaa uur bay ii qaadaa way ii dhashaa wax walba ayay ii samaysaa buu yidhi ma intaasoo dhanoo wanaaga intaan qarinno ayaan hal xumaan ah oo qallooceedii uu keenay miyaan sheegaynaa gabdhahaan ilaahay uga baqna allah idin barakeeyo waxaan leeyahay guurkan guur lagu baraara allah ka yeelo walaalkeena maxamuud horta waa inaan saaxiibanahay naykuuru ayaan wada degannahay runtii aad baan u aqaanaa waxaan is leeyahay ammaanadan waa ninka soo bixi karaaya laakiin haddana waa insaan waa daciife ilaahay ha ku guuleeyo ruuxul qudus allah ku xoojiyo maanta maxamuud waxaad yeelatay aabba kale waa kana aabbaha hooyaad yeelatay walaalaad yeelatay marka gabadhana sidaas oo kale waalid u yeelatay iyo walaalo ilaahay waxaan ka baryayaa allah isku keen askuro nimco walbaana nuqsaanay leedahay xasad bay leedahay xasadka allah idinka koriyo ilaahay il jinni iyo il insi ha idinka koriyo gurigana guri salbalaaran guri maaragtay har geed har leh allah ka yeelo innaga oo dhanna runtii inta mas'uul qaadi ilaahay waxaan ka baryay xilka allah la garab galo ubad intaan la helin ubad saalix allah siiyo inta ubad joogta allah u hagaajiyo inta aanan guursanin taasaa loo badan yahay dhagaha loo taagayahay ilaahay waxaan ka baryay rag ama haween ahlu diin akhlaaq leh madaxa inoo wada saaran ilaahay oo indhaha hortooda noo jooga faraanti noqda allah ha siiyo ilaahay guur xalaal dhalinyaradiina ha siiyo guuray ku dhowrsadaan allah ha siiyo ilaahay waxaan ka baryay inta qaamaysan qaanta allah ka gudo aad iyo aad baad u mahadsantihiin raalli aad intaan ku dheereeyay تسنوك إن شاء الله تعالى وش هي قبلها